aad baan kuu salaamayaa waan kaaga mahadcelinayaa gurigaaga aad igu soo dhaweysay iyo ballankii interviewga aad naga aqbashay su'aasha ugu horeysa cabdiraxmaan waxaad wareejisay xilkii guddoomiyenimada xisbiga mucaaradka ee wadani oo dhowr sano aad haysay maxaa arrinkaa keenay atoosh waa ku salaamay marka hore soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow shalay bay ahayd maalintii labaad ee shirweynaha waxaan si rasmi ah u wareejiyay oo ka tanaasulay inaan u tartamo xilka guddoomiyaha xisbiga wadani aan muddo soo hayay 10 sano ku dhow horta 10 sano ku dhawaad baan hayay xilkuna waa meerto anigu waxaan qabaa wixii 10 sano ka badani xilalka madaxweynaha lagu xadiday 10 sano marka 10 sano wixii ka badan xilhayntu waa muddo kordhintana aan ugu diyaarumay laba xisbigu korayay inta dad baa ku soo jiray dadkuna way korayeen xisbigana waxaan astaan u tahay wareejiyay inuu yahay xisbi la wada leeyahay oo dadku hankooda ay ka dhaxeli karaan waayo xisbi wadani waxaan doonayaa inuu ka bedelo axsaabtii sumadooda ahayd in odayga hor fadhiya uu ku suntanaado guddoomiyuhu hadduu tartamo aan lala tartamin marka dhaqankaasaan doonayay inaan bedelo oon curiyo dhaqan cusub oo guddoomiyuhu isagoo xaq u leh oo weli kursiga fadhiya inuu ku dhici karo inuu yidhaahdo waan ka hadhay waxaan doonayaa inaan muujiyo wada lahaanshaha axsaabta waxaan doonayaa inaan muujiyo is-aaminaad siyaasadeed waxaan doonayaa inaan bedelo dhaqankii ahaa in beeluhu gacmaha isu dhiibaan oo la yidhaahdo beel baa beel ku wareejisay waxaan doonaynaa dadka xisbiga ku jira ee ku barbaaray ee koray 10 sannadood inay xilka la wareegaan in fursad la siiyo dhalinyarada marka sababaha awgeed ayaan uga tanaasulay inaan anigu sii noqdo guddoomiyaha xisbiga imisanaad hadda xilkan aad wareejisay aad haysay xilkan si rasmi ah wadani wuxuu noqday xisbi 26kii bishii 2012 intii ka horeysay urur buu ahaa 12 ilaa waqtigan ku sheegay marka haddii dee la eego maalintii xisbi lagu dhawaaqayna waa 9 sannadood oo wax dhiman haddii la eego maalintii aanu aasaasanay ururkana waa 10 sannadood si kale haddii loo dhigo inaad xilka wareejiso deedna guddoomiyennimadii xirsi xaaji cali loo doorto ma la isdhihi karaa dabcan dana siyaasadeed iyo soo jiidasho gobollo kale ama dad kale yaa ka dambeysay meesha kama saari karo waayo waxaan doonayaa dadka xisbiga ku jira qof waliba deegaan buu ka soo jeedaa guddoomiyaha baarlamaanka deegaan buu ka soo jeedaa guddoomiyaha cusub deegaan buu ka soo jeedaa madaxda kale la doortay shalayto mid waliba deegaan buu ka soo jeedaa qaar baa wadal ka soo jeeda qaar baa maroodiyaha ka soo jeeda qaar baa saaxil ka soo jeeda gobollada dalka oo dhan ka soo jeeda taa macnaheedu waxa weeye xisbi la wada leeyahay dhammaan gobolladii dalka cod baan ka doonaynaa dhammaantood sidoo kale inaad xilka wareejisay ka sokow musharaxnimadaadii madaxweyne ee doorashada soo socota yaa la ansixiyay shalay maxay taa kaaga dhiganta cabdiraxmaan horta xisbigu waxaa la doortay inaan musharax madaxweyne noqdo 30kii Maarch 2021 shirkii golaha dhexe sida xeer ku dhigayana go'aamada shirka golaha dhexe wax lagu ansiyaa shirweynaha marka shalayto waa la ansixiyay taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay in xisbigu dhammaantii isku raacay inaan ahay musharaxa xisbiga wadani 2022 November haddii la yiraahdo misleedahay wadani waji cusub ay la timid mar haddii doorashadii hore waad ku guuldaraysateen laakiin dabcan maanta waxyaabo kale oo aad kaga horeysaan baa jirta xisbiyada kale oo doorashadii u dambeysay golaha deegaanka iyo tii golaha baarlamaankaba tiro badan baad haysataan marka misleedahay wadaniyo waji cusub baa hadda timid wadani sidaan kuu sheegay wajigiisuna way cusub yihiin waana badan yihiin doorashadii ugu dambeysay ee golaha wakiilada iyo deegaanka xisbigii isagoo mucaarada wuxuu noqday xisbiga ugu kuraasi badan golaha wakiilada xisbigii ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka xisbigii ku guuleystay 4 ka mid ah 6 gobol inay maayar ka noqdaan
marka taas waxay tusinaysaa koritaanka xisbiga koray imakana waxaan rajaynaynaa inta ay ka badan inaan ka helno haddii alla ka dhigo shacbiga Soomaaliland codkooda. Cabdiraxmaan, arrinta aadka loo durayay intuu shirka natiijadiisa soo baxday waxaa ka mid ah haweenka oo dee 6 gudoomiye ku xigeen hal qof baa dumar ah taasoo dhaliil lama dhigo haddii de waa relative waxa la yiraahdaa Ingiriisiga marka taa la eego waa dhaliil 6 qof oo ku xigeen inuu mid haween noqdo laakiin waxaad barbar dhigtaa labada xisbiye kale midna hogaankooda dumarku ma jiro marka haday dhaliil tahay noqon karin marka kuwa kale dhinac dhigo laakiin dhaliishii in lagu faano maahan soo maahan adigu gudoomiye nimadii wada wareejisay waxaa kala wareegay xirsi 6 xirsi ku xigto mid unbaa ah xogiyihii hogaanadii kale waxaan kugu darayaa waxa jiray 6 xubnood oo nomination ah oo hogaanka ku biiray anigu kamid ahay 6 gabadh baa ku jirta marka hogaanka xisbiga hadda laba haween ku jira waa kartay soo lagama badin karin waa laga badin karay laakiin waa bilow fiican waa gartay waxyaabaha aadka loo durayay dabcan wax badan oo wanaagsan baa dhacay waxa kamid ah wixii meesha ka dhacay oo dad badan ay leeyihiin banaanka lagu soo hagaajiyo qof walba xilku qabanayay deedna meel marin ahaan iyo gacantaag baa lagu xalaaleynayay taa mis leedahay waa dhaliil xagga dimuqraadiyadda xisbiga wadani loo jeedin karo sida loo dhigay ku xidhan tahay wixii dadku ku heshiis yahay waxaan u arkaa inay sax yihiin marka in dibadda lagu heshiiyo waa adduunka oo dhan ka dhacda Labour Party ka dhacda xisbiga dimuqraadiga ka dhacda Republic ka dhacda xisbiga gudihiisa wixii lagu soo bislaayo ee aqlabiyadu isku raacdo waa la hor keeni karaa golaha xaq baan u leeyahay inay diidaan iyo inay ogolaadaan labadaba wadani 3 doorasho galay oo tii u dambeysay hadda aqlabiyada faraha badan golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka aad ku yeelateen misleedahay idinkoo ka duwan wadanigii hore la yaqiinay yaa tan November sanadka soo socota aad gali doontaan kow waxaan doorashadii dhaweytay waxay muujisay shacbiga taageerada ka haysta xisbiga waana ku sheegay golayaasha anaga ugu badan hadda 2 wajiyo cusub ku soo biiray gudoomiye cusub ku soo biiray gudoomiye baarlamaan baa ku soo biiray hoggaan cusub ku soo biiray marka waxaan leeyahay haayo wadanigii 2017 mid ka duwan oo ka xoog weyn baa imanaya hadda la ka dhigo xubnaha xisbiyada kale ka soo baxay idinku soo biiraya waxa idinku soo kordhin karaan maxay tahay horta qof kasta de haduu ugu yaraado codkiisu la imanaya soo maaha hadana waxba la iman marka halka codna lagu kala badiyaa marka waxaan ugu soo kordhinayaa dad badan oo siyaasiyiin oo magac leh ku jira dad badan oo la garanaya ku jira marka waxa isleeyahay wax badan bay soo kordhinayaan qof wasiir ka soo noqday kulmiye ama xukuumadii hore ama kulmiye hogaanka sare ku jiray inuu wadani yimaado dadka say u arki karaan shacabka caadiga ah ee guryaha jooga waxaan la jeedaa qof la soo tijaabiyo xil xafiiseed qabtay xil xisbi qabtay horta de xisbiyada waxa loo sameeyay hadduu ku qanci waayo qofku waxa jiri kara qaar wadani ku qanci waayay xaq bay leeyihiin labada xisbiye kale ka doonayna tagaa ka kulmiye ka yimid wadani yimaada kama duwana mid intuu wadani ka tagay kulmiye tagay Cabdiraxmaan November hadduu Allah awood la ogolaado ya mudaxileedka doorashada ay ku eg tahay ama ay dhacaysa sida lagu wado kalsooni intee la eg yaad ku qabtaa inaysan maalin dib uga dhicinin doorashada Soomaaliland bisha November 2022 anagu kalsooni bixin ku qabnaa noomana muuqato sabab loo kordhiyo oo muddo kordhin u dhacdo sababtu waxa weeye dadkii codeynayay 80% ama ka badan waa diiwaan gashay guddiga doorashooyinka qaranku waxay ku dhawaaqeen inay doorashadii wadaan iyo hawsheedii madaxweynaha waxay la kulmeen bishii 8aad wuxuu amray inay soo diyaariyaan budgetkii iyo timeline-kii wax kale ka dhiman oo imakaan isleenahay waa qabyo ma jirto waa gartay dhaqanka lagu yaqaano doorashooyinka Soomaaliland wax un baa soo bixi jiray qadar alla ha ahaato laakiin haddana marmarsiin lama waani jirin oo inta badan
haddaan xasuusanno taariikhda doorashooyinka madaxweyne walba wax unbuu ku darsanayay muddo xileedkiisa dastuuriga ah walwal ma qabtid innaba anigu walwal ma qabo sababahay u kordheen doorashooyinkan isma garanaya oo goobjoog baan ahaa 2008 doorashadii madaxtooyada dhacday ahayd erigii madaxweyne Riyaale sabab qura loo kordhiyay sababtaasina waxay diiwaan gelin oo 2009 la bilaabay siinay xilka hore wuxuu kaga eekaa 2015 sababta loo kordhiyay waxay diiwaan gelin waxaan la bilaabay 2016 maanta diiwaan gelintu waa noo diyaar diiwaan gelin kala dhacaysa ma lahan waxa laga yaabaa 10% 15% dadka in loo baahdo taasina waqti badan qaadan mayso yaa ku heshiinaya marka baahidaas uma baahna in lagu heshiiyo waxay ku socotaa qorshahana commissionka fulinaya iyagana wax saaran hawshaas kalsoonida guddiga doorashada aad ku qabtaan gaar ahaan xisbigeena mucaaradka wadani intay gaarsiisanta anigu kalsooni ma siinay doorashadii horeba way jirtay markii la bilaabayay iyaga laftigooda la doortay inaanu ka keenay dood laakiin taa waa laga soo gudbay waanu aqbalay kalsooni baanu siinay doorashadii bay qabteen tanna kalsooni baanu siinay inay doorashada qabtaan kalsoonida ma waxa ku galiyay doorashadii aad ku guuleysateen golaha deegaanada iyo golaha baarlamaanka maya berigii hore daanagoo dood ka qabnaanu kalsooni siinay inaan ku guuleysanayno ma aanan ogeyn inaan deegaanka u badanayno iyo baarlamaanka ma aanan ogeyn ka hor baanu kalsoonida siinay maantana waa siinayna sida doorashada qabtay way hadda markaa ka waaya aragsan intii berigii hore aan markay qabanayeen marka shaqay soo qabteen wala tijaabiyay way kalsoonida aanu siinay waan u haynaa waa siinayna doorashadii ugu dambeysay ee aadan ku guuleysanay 2017 iyo maantoon joogno markaad isweydiisay Cabdiraxmaan kaliga adigoo ah ma ka kalsooni badan tahay berigaas hawa kalsooni badan tahay way xisbigu koray xisbigu berigii hore halku taagnaa wuu ka koray doorasho kale uu istijaabiyay baarlamaankii isaga u badan gudoomiye baarlamaanka isaga leh maayaradii ugu waaweynaa gobolada afar ka mid u leeyahay doorashadii ugu dambeysay xisbiga ugu codka badnaa uu ahaa marka xukuumadda la barbar dhigo iyo xisbiyada kale marka kalsoonida taasana siinaysa hadiiba innaba walwal kugu jiro isleedahay xisbiga ku gilgili kara waa ka xisbiga ma kulmiye mise qolada kale u cid horta labaduba waa doorasho lama yaraysan karo laakiin waxa isleeyahay xisbigaanu tartamayna hadda waa ka talada haya kulmiyo sidan ah miyaad ka walwalsanta mise kulmiyo waji kale cusub oo la yimid kulmiyaan ogahay inuu madaxweyne yahay kulmiyaan ogahay inuu dawladda haysto kulmiyaan ogahay inuu ciidanka xukumo kulmiyaan ogahay inuu baanka xukumo waxaan diyaar u ahay la tartamo waxaan wax warwara ka qabanay ma jirto laakiin intaba laguma galo Soomaaliya bangiga iyo askartaba doorasho ma galay dad ba saf galay cod rida intuba saameyn bay leeyihiin gartay intuba saameyn bay leeyihiin waan soo qatimaynaa su'aashan weyna yaro culus tahay kaftan uu ku jira haddii lagu sahlo doorashada yaad isdhihi lahayd ha lagula tartansiiyo anigu laba cidii la tartamaysa diyaar baan u ahay imaka Muuse iyo Faysal baan ogahay cid tartamaysa labadoodana diyaar baan u ahay la tartamo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro aad baad u mahadsantahay